السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داوديال مركز naga daawanaysan ku soo dhawaada wararka maanta taariikhda maanta waxay ku beegan tahay 12 bisha Janaayo 2019 kun soo dhawaada qodobada wararka ugu doorran askari ka tirsan dawladda oo maanta dhaawacay gabar mooto bajaaj saarneed al-shabaab oo weeraray ciidamo ka tirsan militariga Kenya Ra'iisul Wasaare Khayre oo xafiiskiisa ku qaabilay madaxda siyaasadda iyo nabadda qaramada midoobay Ethiopia oo faafaysay weeraro ay ku furisay gudaha Soomaaliya booliska Kenya oo dad Soomaali ah kala baxay xerada qaxootiga Dadaab qodobada iyo qodobo kale faahfaahsan u diyaar garoowa aynu ku bilowno xubin ka tirsan qoys Soomaali ah ayaa la soo taagay maxkamad ku taala magaalada London iyadoo oo lagu soo oogay dacwad la xiriira fariimo ay ku wadaageen WhatsApp-ka xubnaha ayaa la sheegay in ay WhatsApp-ka group ku wadaageen fariimo la sheegay in ay ka muujinayeen farxad iyo taageero ay u hayaan weerarkii ka dhacay deegaanka Westminster ee bartamaha magaalada London sanadkii aynu ku soo gudubnay 2017 haweeney lagu magacaabo Asma Awees oo 30 jir ah ayaa waxa lagu xukumay 19 bilood halka walaalkeed oo lagu magacaabo Ahmed Awees lagu xukumay xabsi ah 25 bilood sidoo kale maxkamadda London waxay Asma ninkeeda oo lagu magacaabo Abdulaziz Abu Munye ku xukuntay xabsi 15 bilood ah qoyskaasi oo xukunka lagu riday bishan Janaayo 25keedii ayaa la sheegay inay soo degsadeen ama download gareysteen muuqaalo kooxda Daesh isla markaana ay isku dhaafsadeen barta ay qoyskaasi ku leeyihiin WhatsApp-ka group sida ay sheegeen dacwad oogayaasha dhinaca kale laba kamid ah qoyskaasi oo lagu kala magacaabo Weli Awees iyo Suleymaan Awees oo la sheegay inay u socdaaleen dalka Syria bilowgii sanadkii 2015 ayaa la rumaysan yahay inay ku geeriyoodeen dagaal ka dhacay dalkaasi warbaahinta Fana ee ku hadasha afka dawladda Ethiopia ayaa ku soo warantay in ciidamada cirka ee dawladda Ethiopia ay duqeyn ku dileen 35 dagaalyahana ka tirsan ururka al-shabaab Ethiopia ayaa sheegtay in weerarkan uu dhacay 24 bishan Janaayo ee sanadkan war qoraal ah oo ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga ayaa sidoo kale lagu sheegay in duqeynta ay socotay 44 daqiiqo lagu bartilmaameedsaday saldhigga ay al-shabaab ku leeyihiin degmada Buurakaba oo qiyaas ahaan 75 kilomitir dhanka bari kaga xigta magaalada Baydhabo militariga Ethiopia waxay sidoo kale sheegeen in madaxa howlgalka al-shabaab ee deegaankaasi Abdul Ismaan ay ku dileen weerarka iyo in ay burburiyeen 4 kamid ah gawaarida dagaalka ururka al-shabaab ayaa horay u sheegay in ciidamo ka tirsan Ethiopia ay ku weerareen inta u dhaxaysa magaalooyinka Baydhabo iyo Buurakaba waxayna sheegeen in ay halkaasi ku dileen tabaneeyo kamid ah ciidamada Ethiopia hase yeeshee hadalka ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga Ethiopia waxa beeniyay ururka al-shabaab dawladda UK ayaa ka hadashay ninka Britishka ah ee ku xiran magaalada Muqdisho kaasi oo la haysto ciidamo ku saabsan inuu walxo qarxa la kori lahaa diyaarad xafiiska arrimaha dibadda UK ayaa sheegay inay xiriir la leeyihiin Antonio Kog iyo dawladda Soomaaliya isla markaana ay caawinayaan qoyskiisa hase yeeshee ma bixin faahfaahin intaasi dheer Kog ayaa dhawaan ka badbaaday isku day dil oo ay la dhamacsanayeen maxaabiis Daesh ah oo kula xiran xabsiga dhexe kuwaas oo sakiin ku weeraray Antonio Kog ayaa horay u ahaa askari hase yeeshee waxa uu dhawaanahan ka shaqeynaya maareynta casradaha iyo ururinta xogaha sirdoonka shirkadda SKA oo u shaqeynayay intii uu Soomaali joogay ayaa shaaca ka qaaday inuu shaqada ka tagay 5 Janaayo 2 toddobaad ka hor inta aan la xirin ninkan oo sidoo kale ku hadla luqadda Faransiiska ayaa muddo 16 sano ah ku noolaa dalka Faransiiska isaga iyo xaaskiisa Amanda wuxuu uu bogiisa LinkedIn ku sheegay ku soo shaqeeyay Koonfur America galbeedka iyo bartamaha Afrika bariga Yurub iyo Koonfur bari Aasiya intii uu Muqdisho joogay ayaa la sheegay inuu ka shaqeynayay arrimaha amniga iyo aruurinta xogaha sirdoonka
dhacdo la yaab leh ayaa ka dhacday magaalada Muqdisho. Askari ayaa dhaawacay walaashiis oo saarneyd mooto bajaaj. Waxa mootada soo kireystay gabadha la dhaawacay kadib askarigii ayaa baxsaday oo lama qaban saacado kadib. Askarigii ayaa wuxuu aaday xaafadiisa uu degnaa asagoo isqari xaafadii markuu imaaday waaba cidlo xitaa hal qof ma jooga. intaas kadib wuxuu la hadlay dadkii kale oo deriska ahaa xaafada degnaa. wuxuu yiri aaway dadkii gurigan joogay. waxaa la yiri dadkii ma joogaan, hooyada iyo walaalaha ma joogaan oo isbitaal ayay jiraan. walaasha ayaa saakay xabad ku dhaxday iyadoo mooto bajaaj saaran. waa isku naxay isagoo isweydiinayo waxaad xabadda ku riday amay walaasha ahayd. isagoo yaaban ayuu wuxuu tagay kaysanay walaashiis la dhigay. indhaha ayuu saaray iyadoo dhaawac ah. hooyadiis ayuu weydiiyey xagee joogtay markii xabadda ku dhacaysay. waxaa loo tilmaamay isla meeshii uu mootada ku rasaasay iyo isla saacadii uu xabadda ku dhuftay. intaas kadib wuxuu ku qafiifay isagoo leh ma aniga ogaa inay walaashay tahay ayuu ku celceliyey isagoo qafiifay waliba isku dhex yaacsan dadkiina ay la yaaban yihiin. intaas kadib waxaa isbitaalka imaaday booliiska Kaaraan oo isleh gabadha dhaawaceeda fiirinaya waxay arkeen ninkan oo isku dhex yaacsan oo dhahayo inay walaashay tahay ma ogeyn. wax kasta hadda loo sheegay wuxuu ku celcelinayaa inay walaashay tahay ma ogeyn. si kastaba ha ahaatee intaas kadib waxaa goobta soo gaaray ciidan waxayna qabteen askarigii dilkaasi geystay. arrintan ayaa waxay noqotay mid ku soo laabata magaalada Muqdisho, waana tiro dhowr ah oo mooto bajaaj saaran magaalada Muqdisho dilal kala duwan looga geysto. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay madaxda waaxda siyaasadda iyo dhismaha nabadda qaramada midoobay DB oo Muqdisho safar ku soo gaartay. kulanka ayaa looga hadlayay adkeynta xiriirka qaramada midoobay iyo dowladda federaalka Soomaaliya in si dhow labada dhinac ay ugu wada shaqeeyaan danaha ummadda Soomaaliyeed, in dowladda laga taageero dhismaha dowladnimada iyo nabadda, iyo in la dhiirigeliyo wadaagnimada waqtiga fog ee Soomaaliya u suuragelinaysa mustaqbalka barwaaqaysan. Ra'iisul Wasaare Khayre iyo madaxa waaxda siyaasadda iyo dhismaha nabadda qaramada midoobay ayaa ku heshiiyey in qaramada midoobay ay dowladda kala shaqeyso ku guul gaaridda hadafyada waaweyn ee dowladda oo ay ka mid yihiin kobcinta dhaqaalaha, cafinta deynta, ka shaqeynta siyaasadda loo dhan yahay, dagaalka ka dhanka ah musuqmaasuqa, dardargelinta amniga, iyo sidii dadka Soomaaliyeed ay u heli lahaayeen waxbarasho iyo caafimaad. Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya ayaa ammaanay taageerada xooggan ay doorka muuqda ee qaramada midoobay ku qaadatay dib u soo kabashada, xasilinta iyo kobaca dalka Soomaaliya. madaxa waaxda siyaasadda iyo dhismaha nabadda qaramada midoobay Ra'iisul Wasaare Khayre ayaa isku raacay in dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed ay qaataan doorka hogaamineed iyo jaangoynta qaybaha muhiimka ah ee dowladda looga caawinayo, iyo in qaramada midoobay ay ku taageerto in lagu fuliyo xilliyada lagu talagalay in lagu dhaqangeliyo. Ra'iisul Wasaare ku-xigeenka dowladda federaalka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed ayaa daafuray shir looga hadlayo sidii dadka Soomaaliyeed ee barakacyaasha ah xal waara looga heli lahaa kuwaas oo ku barakacay gudaha dalka. shirkan oo uu daafuray ku-xigeenka Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya ayaa waxaa ka soo qayb galay golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya iyo mas'uuliyiin ka socotay golaha ammaanka ee Jimciyadda Qurmaha ka dhaxaysa. shacbiga Soomaaliyeed gaar ahaan barakacyaasha Soomaaliyeed ayuu xusay in la dardargelin doono waxqabad muuqda oo ku wajahan dadka barakacyaasha ah. ugu dambeyntii wakaaladda wararka Shiinaha ee Xinju ayaa galabta shaacisay saraakiil ka tirsan booliiska la dagaalanka waxa loogu yeero argagixisada iyo ku qabteen howlgal ka dhacay xeradaasi, isla markaana qaxootigaasi su'aalo la weydiinayo. taliyaha booliiska Kenya Joseph Boynet waxa uu sheegay in rag la soo qabtay ay si sharci darro ah ku galeen xerada Dadaab, isla markaana ay ku shaki qabaan inay xiriir la lahaayeen Al-Shabaab. waa sida hadalkooda u dhigay. waxa uu intaasi ku daray in mid ka mid ah eedeysanayaasha uu haysto 2 baasaboor oo dalka New Zealand oo magacyo kala duwan leh. waa sida uu hadalka u dhigay. howlgalka ay booliiska Kenya ku soo qabteen qaxooti Soomaali ah oo ku nool xerada Dadaab ayaa waxaa ka soo beegmaya
iyadoo aad loo adkeeyay ammaanka dalka Kenya kadib weerarkii ay al-shabaab bishan Janaayo 15keedii ku qaadeen hotelka Dusit-D2 ee magaalada Nairobi oo la sheegay in 21 qof ku geeriyoodeen. Daawadayaal, antaas ayaan ku soo gabagabeynaa wararkeena maanta. waxaadna ka daawanaysaan telefishinka caalamiga SBTV. inta warkan warar midaan ku doono waxaan idinkaga tagaynaa sida ay nabadgelyo. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.